laakiin waxaan cadaynaynaa abwaan bedel gacantii dishay haddii ilaahay raalli ka noqdo in lagu tegi doono ilaahay idankiis waqti dhow raadaan haynaa xogaan haynaa informationna haynaa waana ku tegi doonaa waxaan u sheegaynaa ciddii gacantaa geysatay inaysan naga dhuuman doonin naga hoyan doonin nagana harsan doonin haddii ilaahay raalli ka noqdo bal soomaaliyay xisaabtama haddii culimmadiinnii islaamka ahayd oo ilaahay iyo rasuulkiisaba rumaysay oo nin waliba qaalullaahi tacaala iyo qaala rasuulu leeyahay haddii mid loo dilayo waa argagixisee dila oo mid la leeyahay waa takfiira dila oo mid la leeyahay waa alqaacida dila hoygiisa dhabta ayuu maantii u hoyday abwaan bedel jaamac xirsi oo lagu aasay qaburo ku yaala degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maxaa ka jiray in kuwa kamid ah dadkii dilkiisa geystay ay ka qayb galeen aaskiisa maxay arrintii la yaabka lahayd ee lagu arkay markaasi goobta aasku ka dhacay abwaan bedel iyo sidoo kale abwaanka oo markaasi ka tagay 9 caruur oo isugu jira rag iyo dumar abwaanka ayaa markaasi waxa ilaamaha ammaanku sheegeen inay ku daba jiraan sidoo kalena ay soo qaban doonaan maalmaha soo aadan dadkii ka dambeeyay dilkiisa haddaba gacalayaal waa bil Ramadaan aynu si niyada ugu ducayno abwaan bedel jaamac xirsi oo kamid ah wadaniyiinta farakutiriska ah ee ku haray dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wuxuuna maanta ama xalay tusawsay dhagarqabayaal markaasi isagoo sooman sidoo kalena dhowr xabo oo timira afka ku soo qaatay markaasi ay markaasi u galeen oo gurigiisa iyo sidoo kale inta u dhaxaysa masjidkii uu markaasi ku soo tukaday haddaba saaxiibayaal muuqaalkan like fara badan saara si bulshooyinka Soomaaliyeed u gaar waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal la yaab leh oo uu shaaciyay maalinta la dilayo habeenkii la dilayo maalinteeda abwaan bedel jaamac xirsi kaasi oo loo maleynayo inuu yahay muuqaalka uu sababsaday haddaba saaxiibayaal haddii aad markii ugu horeysana soo boqoto YouTube-kana subscribe saaray gambaleelkana furo ku mahadsanid waxba yaana walidin ku daalana saaxiibayaal waxaan idin tusayaa muuqaalkii ugu dambeeyay ee uu duubay abwaan bedel jaamac xirsi kaasi oo loo maleynayo inuu yahay midka uu sababsaday bal soomaaliyay xisaabtama haddii culimmadiinnii islaamka ahayd oo ilaahay iyo rasuulkiisaba rumaysay oo nin waliba qaalullaahi tacaala iyo qaala rasuulu leeyahay haddii mid loo dilayo waa argagixisee dila oo mid la leeyahay waa takfiira dila oo mid la leeyahay waa alqaacida dila oo mid la leeyahay waa sunna dila oo mid la leeyahay waa qaadiriye dila dadkii maxaa haraya in laydinku soo duulay oo diintiinnii lagu soo duulay oo la rabay in diinta laydin nacsiiyo oo laydin baabi'iyo horta taa garta habar dugaag waxba noo tari mayso habar dugaag anigu waxaan u aqaanaa waxaanaad beesha caalamka tidhaahdaan waa habar dugaag waa laynoo heshiiyey inay innaga layna cuno layna baabi'iyaa loo heshiiyey sheekh waliba wuxuu daliishanayaa qaalullaahi iyo qaala rasuul war maxaan isku dilaynaa marka culimmadeenna war maxaan isku taabanaynaa war aayar intaan qaadanno kitaabkeennaa ilaahay yah aynu walaalowno midigta isqabsanno cid walbana aan iska celinno haddaan saa yeello ilaahay baa cirkaa roob inoo dii ciiddaa inoo barakoobi cuudkaa inoo barakoobi dhaqaalaynu heli gaal iyo muslim midna u baahan mayno oon ilaahay tala saaranno kow bal horta innagu inaan isjeclaanno meel kastaba aan joogno inaan walaalan nahay oo rixin nahay oo soomaalin nahay oo ilaahayna wada abuurtay oo na wada dhaliyey oo wiil iyo adeerkii iyo abtigii aynu nahay waa inaan horta ogaanaa oo taa qof walba niyada geliyaa labo in lagu dhaqmo kitaabka ilaahay noo soo dejiyey iyo sunnihii rasuulka oo qur'aankii ilaahay aynu ku dhaqanno oo wax kastoo inaga hor yimaada aan ola noqonno kitaabkii ilaahay iyo xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aan iska dayno qodobka firqadiisa 7 dastuurka 9 waxaasuu sheegay intii iska dayno ilaahay wuxuu yidhi rasuulkeenni wuxuu yidhi inaynu ku dhaqanno haddii taa la helo ilaahay baa inoo naxariisan annaguna aan isjeclaanno oo walaalo noqonno waddadii mustaqiimka ahaydna aan ku toosno oo ilaahay shareecadiisa qaadanno oo dalkeenna lagu maamulo oo dalka diinteenna aan ku dhaqanno oo kor u qaadno ilaahay rabbiga khaaliqaa inoo naxariisan ilaahay baa inoo nusray wax lagu baqdana ilaahay baa ugu fiican oon xaggiisa u baqanno ma garata taasay soomaaliya u baahan tahay laakiin inta dowlatulqabiil ka dhisan tahay oo qabiil walba madaxweyne leeyahay oo aynu qodobka 8 lambarka firqadiisa ku dhaqmayno oo ninba ninka kale faylaha goynayo soomaali wanaag arki mayso adduunkana ciriiri baanu ku jiraynaa sidaa aakhirana cadaab baan ku jiraynaa waxaan leeyahay marka soomaaliyey ilaahay inta ka cabsataan shareecada islaamka aan ku dhaqanno diinteenna islaamka aan ku dhaqanno innagu aan isjeclaanno dadka
soomaali annaga isugu xigna ummad qoys baynu nahay ma garata innagu iyo qoysa haddaynu 10 qaran isu qaybinno soo cadowgu nin walba meel ka heli maayo anigu saasaan ku talin lahaa markaa intaa kadib ilaahayow waxaan kaa baryayaa ummadda soomaaliyeed inaad midayso ilaahow waxaan kaa baryayaa ummadda soomaaliyeed qalbigeeda inaad isu maydho ilaahow waxaan kaa baryayaa dowlad xaqa oo cadaalad oo islaama inaadna siiso ilaahow waxaan kaa baryayaa wixii naga xun oo dhan inaad naga qabato ilaahow waxaan kaa baryayaa wixii aan hanuunsamayn inaad naga halaagto ilaahow waxaan kaa baryayaa soomaaliya inaad hagaajiso ilaahow waxaan kaa baryayaa inaad hilinka nagu toosiso inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun waxaan leenahay abwaan bedel abwaankii weynaa soomaaliyeed ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo runtii waa geeri xanuun badan oo ummadda soomaaliyeed guud ahaan wada saamaysay guri kasta oo soomaali ah meel kastuu joogo waa guri laga dareema xalay geerida abwaan bedel runtii waxaan leenahay ilaahay jannad firdowsaha ka waraabiyo gacan ka xaq daran baa dishay xilli bil rabadlaana oo soomanaa oo saa'ima oo masaajid beydkii ilaahay uu ku jiray ayaa lagu dilay waxaan leenahay naxariista janna allah ka waraabiyo runtii qofkii beydka ilaahay ka xishoon waayey oo beydka ilaahay qof sooman oo saa'ima ugu galay aakhiri adduun midna xuma yaalaan runtii waa geeri aad u xanuun badan waana ka tacsiyeynaynaa ehelka iyo qaraabada ummadda soomaaliyeed waan ka tacsiyeynaynaa laakiin waxaan caddaynaynaa abwaan bedel gacantii dishay haddii ilaahay raalli ka noqdo in lagu tegi doono ilaahay idankiis waqti dhow raadadaan haynaa xogaan haynaa informationna haynaa waana ku tegi doonaa waxaan u sheegaynaa ciddii gacantaa geysatay inaysan naga dhuuman doonin naga hoyan doonin nagana harsan doonin haddii ilaahay raalli ka noqdo insha allahu tacaala godkay galaan aan ugu geli doonno cid kasta ay noqoto ee meel kasta nala gashana aanaan ka hari doono ilahay idankiis haddii ilahay raado hadday aaminsan yihiin maalin kasta qofka bulshada soomaaliyeed macnaha u leh inay inta la dilo la iska seexdo in la seexan doonina ballan qaadayna insha allah haddii ilahay yidhaahdo goobo badan iyo guryo badan nabad lagu jiifana lagu jiifi doono haddii ilahay raalli ka noqdo insha allah dadkii kala duwanaa ee ka qayb galay aaska marxuumka oo isugu jiray dubab dhaqan iyo dhalinyaro ayaa eebbe ugu baryay in uu dembi dhaafo jannadiisana uu geeyo abwaan bedel allah u naxariisto naxariistii janna allah ka waraabiyo intaan annagu ka naqiinay wuxuu ahaa nin ilaahiisa ka cabsada daliilna waxaa u ahayd inuu ilaahay ka cabsanayo saa'im buu ahaa salaaddii maqribkana wuu tukaday isagoo salaaddii maqribka tukaday weliba ku tukaday jamaaca saa'imna ahaa ayay gacan ka xaqdarani dishay wixii aan u rajaynaayey marka waxaa weeye jannatulfardows alaclaa inuu ilaahay ku casumo saasaan ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaalaa intii uu ka tegeyna oo dadkan aaskiisa yimid oo dhan ay ka mid yihiin gaar ahaan ahalkiisii carruurtiisii iyo xaasaskiisii sabir iyo iimaan allaha ka siiyaan leenahay saasaan ugu ducaynaynaa bedel jaamac xirsi oo si kedis ah ajashiisii ay u timi niman dhagarqabayaalana ay dileen waxaan filayaa ninka nasiib badan ma uu jiraan u malaynayaa bishii rabadaan isagoo beydkii ilaahay ka soo baxay oo dhowr xaboo timir afka soo gashaday ilaahayna la soo munaajooday ayay albaabka u istaageen marka dad badan baa hortii dhintay isaguna wuu dhintay annaguna waa dhimanaynaa soomaalidu waxay tidhaahaa balaayo labaqada iyo bakaylo tallaabsan iyo baqal ilmo wadata midna lama arag bedel cidna beer kamuusan gelin guri reere leeyahay ma weerarin gabarh soomaaliyeed kuma xadgudbin xaq nin leeyahay muusan qaadan wuxuu ka hadlayey muxsin buu ahaa dalka soomaaliya ummadda ku nool ee 30 milyan lagu qiyaaso markii laysu geeyo dantooda iyo wanaaggooduu ka hadlayay runtii ilaahay baa ma dhintaa nin waliba oo adduunka ku nool koonka joogayay waa xaq geeridu waana la dhimanayaa waana la dhiman doonaa waana la dhiman jiray waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan eheladiisa qaraabada iyo ehelkii uu ka baxayba waxaan leenahay samir iyo iimaan allah idinka siiyo samir iyo iimaan allah inaga siiyo isagana naxariista janna allah ka waraabiyo gadaashiina allah inama fidimaayo xaqiiqdii waxay la tahay maanta bedel wuu baxay nin walibana dariiqii ilaahay ugu talagalay ee xaq ahaa unbuu marayaa dariiqan buuna maray dariiq kale uu ka bedelan oo uu maray ma jiraan waxa weeye sababta iyo ajashu
innaga unbaa u magac bixinaynee ruux waliba wixii meeshii uu ku baxay